gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed oo ay weheliyeen qaar ka mid ah bahda garsoorka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Axmed Xaashi iyo Qoraabobe Yuusuf Ducaale iyo mas'uuliyiin kale ayaa hambalyadaasi diray. marka ugu horeysa waxaan ka salaamayaa xaaskayga iyo caruurtay iyo waalidkay iyo walaalahay dhammaan meel kasta ay joogaanba. waxa kale guud ahaan salaamayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan guud ahaanba yar iyo kabiir iyo saqiir meel gobol wala joogaan. waxa kale oo salaamayaa dhammaan muslimiinta caalamka oo dhan maadaama ay munaasabad caalamiya tahay oo islaamka oo dhan ka dhaxaysa. waxaan guud ahaan intaas oo dhammaan waxaan leeyahay waxa kale oo si gaar ah u salaamayaa bahda cadaaladda iyo garsoorka oo iyagana aan runtii leeyahay iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan inta hawlwadeennada ka shaqeeyo oo dhan dadkaas oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak. ugu horeyna waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo adduunka ka joogaan maadaama ay tahay munaasabad weyn oo dhammaan dadka muslimiinta oo dhan ku weyn. waxa kale oo gaar ahaan aan salaamayaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland meel kasta oo joogaanba. waxa kale oo aan salaamayaa dhammaan ehladayda qaraabadayda dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaanba aad baan u salaamayaa. jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka asxaabtayda golaha wasiirada baarlamaanka shacbi weynaha reer Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay ciidan ciideeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo. sidoo kale waxaan salaamayaa ciidamada qaranka meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa jooga jiidaha xuduudaha oo hore oo aan leeyahay idinkiyo caruurtiina iyo xaasaskiinaba ku ciid wanaagsan ciidanna ciideeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo. ciid mubaarak dhammaantiinba halka waxaan salaan hambalyo ah oo ciidda soonfur uga dirayaa dhammaan shucuubta muslimiinta meel ay joogaanba. waxaan halkan ciid mubaarak ka leeyahay dhammaan dadka Soomaalida ee ku kala nool geyigan geeska Afrika iyo qurbaha. waxaan halkan salaan gaar ah uga dirayaa shacbiga reer Soomaaliland dhammaantood meel ay joogaanba. waxaan hambalyeynayaa oo aan ciid mubaarak ku leeyahay baawadaagtii halgankii hubaysnayd xoreynta qaran ee sanam horseed ka ahayd agoontoodii iyo naafadoodii inta ka nool anigoo ilaahay uga baryayaa inuu intii ka shahiiday ee dalkan iyo dadkan xoreyntoodii qudhoodii u soo hurtay naxariistii janno ka waraabiyo.